dadka waxaan kula dardaarmaynaa nabadda inay ka shaqeeyaan horumarka ka shaqeeyaan wanaagga ka shaqeeyaan wax kastoo fiican ay ka shaqeeyaan dadka muslimiinta ah meelay joogaanba Soomaalidu meelay joogto waa walaalo ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala innal mu'miniina ikhwa dadku walaalo weeye dadka muslimiinta inay dadka kale muslimiinta xurmeeyaan Soomaalidu Soomaalida kale inay xurmeeyaan dadku dariska ay xurmeeyaan ayagoo is xurmeeyaan baan ku waaninaynaa oo u soo jeedinaynaa sidaas oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta kaliya in la xurmeeyo kama hadline ittaqullaha haythu ma kuntum wa khaliqun naasa bi khuluqil hasan nabigu wuxuu yiri dadkana wanaag kula macaamila gaala iyo muslimba dadku dhammaan waxaan ku waaninaynaa inay gacmaha isqabsadaan oo walaalo noqdaan saasaan ku waaninaynaa هذه 1000 غرفة